السلام عليكم أصحاب تقاليد قهوة سلامتين دمانتين meel kastoo adduunka ka joogtiin waa saaxiibkiin Abuukar Culis oo madax washkax madax barar isku days afdal dhusumay candhu fweyne waji wax kale iyo magacyo badan oo maaragtay aad maaragtay ii gelin kartiin madax digsi iyo madax feero iyo balaayo waa ii raaci kartiin waa saaxiibkiin wax walba waa ii dhihi kartiin maanta waxaan ku balansaneen inaan akhriyo sheekooyinkii shalay aad soo qorteen shalay waxaan idin soo qoray qoraalkan waxaan idin sheekooyinka hoos ku soo qoro waxa haysiin maasha Allah aad iyo aad ayaad maaragtay uga baxsateen 3,000 oo qofood oo idin kamid ah way la gareysay qoraalka 3,300 oo idin kamidna maaragtay qoraal comment ahaan ay u soo qoreen 76 qofoodna way share gareysay so waxaa marka maanta aan akhrin doonaa sheekooyinka shalay aad soo qorteen 5 qofood oo ugu laagta badan ayaan akhrin doonaa maanta waxaan rabaa inaad ila socotiin sheekadan waxa uu akhraa qaab maaragtay qaabkan u fahmo iyo qaabkay tahaba waa isugu daraa hooyada ka qoslaa adoo ilaahay ilaahay ila socda bismillah aan ku bilaabo Shaafici Qarandoon iyaa ساعة عمل شافعي قالوا رب جرو شافعي وابي قالوا زي بيزيكا ولا الكا كو سقطا بركا وقعستا ولا شافعي اني waa ku maadsan tahay qaabka aad nolol socoto mar walba tan ashooyinka quruxda badan aan ugu soo gudbisid top fans kana uu kamid yahay Shaafici intaan sheekadiisa aqrin ka hor ay sheego wuxuu helay 766 qofood ama aragtay like qabac ugu siisay 47 balayna waa heliyo odaga Shaafici sheekadiisan hadda galeena muga wuxuu yiri mid reer mudug ah oo aan weligiis diyaarad raacin hadda ka hor diyaarad raacay odaga wuxuu taagay mid reer mudug oo weligiis diyaarad aan raacin hadda ka hor diyaarad raacay odaga waxa uu aayay reer mudug isku aayo caafadiisu isku joogo baartay tooridiisa u xirneed waraabo dharbaaxa libaax waabiya waxa waa nin balay ka dhacdo isku aha caafadiisu isku joogo marka diyaarada la saaro odaga diyaarad marka la saaray marka waa hawada ay gashay diyaaradii ayuu yiri allay lehe gacantii tulkii waa ka soo baxday odaga wuxuu taagay tulkii gacantooda waa ka soo baxay faadadii marka hebel macnaha gafuuri عمي وجه واحد كله والله بلا معناه يجي لي ما يعني وين ديارة راعي يجي لي ما يلعب الفات هذه كواس يجي لي ما يعني إله ديارة إلرد BBC هكذا مقالان ديارة إنا راعي سناس أكو أمين معناه نيكي هبل هاي ديارة الراعي هرمستان معناها يجي لي ما يعني ولا يا لو غفور يو يا عمي يو وجه واحد كله ديارة راعي وهذا ما حسن يجي لي ما يعني وعير إله إلرد ديارة سي BBC أكو مقالان ديارة كل انتي مركز هو أمين يعني يري والله شيكدا شيكو قطر بدو واي ريمدوق من نحان واوغاد قف ريمدوق ادو كهوري ما سانا او فيريه توري ادي كسو عرفت اسغي واي يا بين لو شيء حتى افريمدوق ادي كو الله ددك كاين ادي عرفي توري كسو عرفي بقرada كسو عرفيس وكعسي ددك ادي ادا او تاغير ريمدوق ادي كو استاوا ما سنتين meel kasto adduunka ka joogtiin teeda kale to Shaafici Qarandoon oo ku maadsanta qaabka quruxda badan ee sheekada nagu soo qortay runtii waa iga qosol sheekada waana u qalantaa lambar 1 maanta inaan gasho 766 like ayaa heshay aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa thank you waxa kaalinta labaad galay nin la yiraahdo Caynta Qaan waxa uu noo soo qoray sheeko qosol badan intaan sheekadiisa guda galin ka hor aan sheego waxa uu reaction ahaan u helay Caynta waxa uu helay 565 like ah reply-na 18 ka badan ayaa u soo gashay Caynta waxa uu soo qoray sheekadan waxa uu yiri gabar ayaa mar qura la soo booday Yaasiin oo ah wiil ay jecleed aabaheed oo meel u dhow jiifay ayaa imtixaanaqay ayuu yiri naaya ayuu yahay Yaasiin بعدها قبل وهرديسي هل مرة وحلو بودي ياسين عمل ويل يجعلد معناها ياسين لازم بودي ويل كل واحد ويل يجعلد واي حريف شلي معناته انت اسقبتين وقت وريجي او وريج ودي معناته بي سي بلا يسوسي بيا بقى قد برك وريس بيا وسو وريجي قفت عليه ياسين وقصو بك على حد فاتي برك حسي waxay tiri ayadoo isoo xilay qofta waxa way faasatahay illa faabijaa odaga had ilaa furtay odaga aragtay naxta qac waxay istiri bar way isoo xisaduq waxay istiri waabi amal wal quraan al hakim bada yaasiin quraan hakim ku xigta bogta abi iska oo yiri ma sha Allah gabadheedu quraanka ay baaratu ku qarweysa inta quraan ugu qarwey xarifa ugu qarwey waa ma santa ayta ku ma santa qaabka quruxda badan sheekada ugu soo qortay thank you waxa kaalinta saddexaad galay nin la yiraahdo haajirkeena waxa uu soo qoray sheeko qosol badan intaana sheekada gelin ka hor aan idin sheego waxa uu reaction ahaan u helay 374 like ayaa loo saaray 17 reply-na waa laga bixiyay commentiga uu sheeka ahaanta noogu soo qoray haajir sheekada uu soo qoray waxay ku bilaabanaysaa sidan wiil iyo awowgii ayaa xilli galab ah meel wada fadhiyeen markaas meesha waxa ka soo baxay macalinkii dugsiga u dhigay macallinka dugsiga cunug u dhigay waa mugtahay ayaa meesha ka soo baxay awowgii intuu soo booday oo yiri wiilkii ku dhahay macnaha dhuumo
maanta dugsiga ma aadan aadin macnaha wiilka iyo awowgiis waa iska baashaalayeen meelahan isaga qaraaxaysayeen macalinka dugsiga meel furdugka soo yiri odagii waa u naxiyay marka wiilka wuxuu yiri wiilkaygu uu dhuumo macalinka dad ku qabto waa qaniin iyo ul iyo balaaya ka dhacaysa anugii kulaha aw adiga dhuumo maanta awowgay ayaa dhintay ayaa kusoo fasax qaatay qosol badana wuxuu yiri aw adiga dhuumo yiri walaa waa baasada jirkeena aad ugu baasada anaga baad celida qaabka quruxda badan aan ugu soo qortay sheekadan runtii waa sheeko qosol badan hambal iyo haadir waxaa noqotay qofka saddexaad ee aan magaciisa halkan ka sheegno mahadsan waxaa kaalinta afaraad galay nin ay u qoran tahay kabtan cabdiraxmaan cabdalla guure waxa uu soo qoray sheeko qosol badan intaana sheekada gelin ka hor aan idiin sheego waxa uu reaction aan u helay 263 qofood ayaa like u saartay 13 reply ka badanna waa uu helay mid cabtooy ah oo habeenkii dhafray ayaa salaada subaxii aaday masjidka asagoo aabihii soo qasbay odaga waa la soo qasbay waa la soo bakorooday soo socaalay masaajidka soo aad oo asoo dhibsanay salaada uu iska soo baxay saaxiibka imaamkii oo macnaha ku turjinaya suurado dhaadheer sida Hud iyo Yunus oo kale ninkii imaamkii ayaa gafay macnaha ninkii imaamka ahaa ayaa gafay quraanka macnaha quraanku gafay waa la gafi karaa quraanku mucjiso waaye quraankii ayuu gafay marka kii cabtooyga ahaa ayaa yiri yaa loo sheegin macnaha hanaga rukuucay macnaha wuxuu taagan yahay odaga quraanka waa gafay yaa loo toosiri soo usii wadin macnaha beeshiisa ku laabto agaf macnaha beeshiisa markuu dhaafi waayo iska rukuucuu taagan yahay mafaad dhiyo waa baasatahay kabtan cabdiraxmaan runtii waa qosla sheeko qosol badan waaye sheekadaas maasha allah waan ku baasatahay qaabka quruxda badan aad uga qayb qaadatay oo aad sheekadan nagu soo gudbisay kabtan cabdiraxmaan wuxuu kamid yahay top fanskan aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa qaabka quruxda badan ayaad noogu xiran tahay thank you waxaa kaalinta ugu dambeysay kaalinta shanaada galay nin la yiraahdo Samatar Maxamuud Samatar wuxuu soo qoray sheeko qosol badan intaana sheekada ugu gudagelin ka hor aan idin sheego waxa uu falcelin ahaan u helay 240 qofood ayaa ka falcelisay commentigiisa Samatar waxa uu soo qoray sheekada tan waxa uu yiri nin socota ah ayaa u yimid reer waxa uuna ku yiri safar baan ahay waxaad wax isiiya waxay siiyeen reerkii caano weel ku jira markuu cabay caanihii ayuu ku yiri sawtii la lahaa reerkani waa bakayleen waxba ma bixiyaan camlo fiicantiin amaano u galay faad adiga markii reerkii baa waxay ku dhaheen war waxba hana amaanine caanaha jiir baa ku dhacay marka waxaan islahaynay caruurta yeenan idinkaga xanuunsan odaga asagana waxa xanuunsan diyaaraba loo yaabo caruurta idinka xanuunsana isdhaan caanaha dooli ku dhacdhacaan odaga marka sidaas awgeeda ku soo ma aha kale kuma saylahayn ninkii intuu xanaaqay ayuu weelkii dhulka ku dhuftay boosh reerkii kulaha wariyaa weelka har naga jibinaa liiraa caruurta habeenka noogu xartay ninkii waa soo baaraa soo jeedi lahaa inta weel lagu xaraaro caano lagu sii lahaa wallahi billahi waa lagu kala bixi lahaa wallahi waa kuma asata Samatar sheekada soo qortay thank you aad kaaga mahad celinaynaa qaabka quruxda badan aad u qabtay waa laba mid basar ku joog ama baahi ku joog ninka culus waay oo adkayso waay dadnimadii oo ka baxay baasaboor jiniyo qaatay maalin walba qorshe la'aan ciridka fanyi kasi wareer waa wallahi qorshe in la daga waa wallahi abti waa ku salaamay aad iyo aad oo shaqadoon baa tahay shaqadoon ah oo qalin jabisay waa qalin jabiye waliba nin haddana qaybta korontada waliba badan galiyaaniyo way gacada kan kaarkayga waaye waa mahadsantaaniyo waqti walba soo qabo waa ku soo qabanaa ma dhagaha ka soo qabanaa waliba waa mahadsantaaniyo fiir abtiyo maxay leedahay fiiri waxaan ku dhihi lahaa warniyo waa iga caddahay niyo baahiyahay saaka waxaan cunay ma jirto niyo kabdacasa waxaan cunay ugu dambeysaniyo marka waxaan jeclaan lahaa inaan lacag isii deemisid hadhowna markaan shaqada ka soo doonto aad iga jirto mushaarkayga kunka shilinaho cunto iyo biyo wax ku gada cabitaan waa mahadsantahay abtiyo aad iyo aad u mahadsantahay waana ku imaan doonaa niyo kaarkan ka soo wici doonaa niyo thank you sir beesenga joog adiga anoo kan oo ilaa shaqo iga soo doona ma korontaa wiliga iyo xirigaar gacan la aska ahay abtiyo ma karkayga waa kana thank you isoo qabo wani ka culiso mu eko oo tindeystaniyo qadaadiidan cunto ku gada thank you ma santaniyo aad iyo aad ma santaniyo ninka waa ka sheegayna culiso passport jini qaatamiyaan oo tino badeystay waa ma santahay abtiyo thank you ma santaniyo ana qorshaan waa u bogay ilaahu qorshe afgooy camal ka dhigin suuq baa warlaana ku camirahay ay abtiyo kala fiiri soo raac gaariga baa okay
kana ku camirna asugad waa ku cabaa kal iyo labeenta sa uu daldalaayo adaa yaabay weligaa koronto ka shaqeeya aniga ni an firabtiyo shaqo dad tahay hade soo oo qaybta korontada miyaba war korontada niyo ay caddaaniyo aad iga caddaa wallah diyaar waa telefoon meesa aniyo may kaarkii xagee dhigan niyo waqti niyo niyo telefoon meesa ku dhaa telefoon niyo niyo telefoon waa haystay mid bar baxsha iga qaataniyo aniga ni wax barta moogta dadka ma fiiri oo igala ordaniyo dhib ma lahan gaariga soo gal shaqadaan ku geenaa subax gaariga soo gal ma iska dhaaftid adiga ma dhib male kaara ta ira raadi laheedna waxa waaye way dhib male soo gal gaariga dhib male xafiiska toos u aadina meesha shaqada soo gal way soo bax hay hadda shaqada horaa ka qabanayna laakiin fiiri inuu kaar isiisa ka fiicnaaniyo kaarka way ugu dhumaaday xafiiska toos u aadina soo bax ninkaan bilaayaha daba dhiganiyo to wiisita bismillah waraakan waxa u maleeyaa maanta ma iqal rabaaniyo weligaa koronto ka shaqeynaya soo dega waa maasanta dhanka kale soo bax okay ay dhanka soo gal gudaha soo gal ay ninkaan adiga maxaa kaa qalday ilaa hadda wax ma sameynayso adiga warniyo waan kari la ahaniyo eberkaa tahay niyo qaban laha wallah warni mutacallina keenay niyo waa garan waayo wallah ninkaan u dhiib waa garan dhiman biisada ninkaan u dhiib kaalika biisada qabo simple naga hagaaji niyo laakiin aniga qaban no iska daaniyo nin balaa ka dhacda aniga ilaahu rabbiyo ma koronta weligay ka shaqeey xog korontada igala soo jeedo kiisa lacagtaas yartaa meesha ka raadsa oo maasantaaniyo lacagtaa yartaa meesha ka raadsa ma koronta weligay ka shaqeeyniyo ya badanaaniyo bismillah war bustaan maxaa war ninka xaa ku dhacay ebermiya qorshahaygii ebermiya weershaa maqli jiray feershaa noqdaa ku dhagalkaa walaa jiniyaasha haddaa u tago baasaboor jini mi weydiiyayaan caadi i qaabilayaan ebermiya